السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclay inaan kelmad ka yiraahdo dabaaldega sanadka cusub ee soo socda iyo sanado wala loo dabaaldegi doono. taana laba dhinac baynu ka eeganaa, dhinacii sharciga iyo dhinacii dhaqanka. markaynu dhinaca diinta ka eegno, nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u soo guuray magaaladii Madiina. wuxuu arkayna ansaartii dadkii reer Madiina oo dabaaldegaya. nabigu su'aal buu weydiiyey, wuxuu war maanta maxaa dhacay? waxay yidhahdeen yaa rasuul allah, maanta waxay ka mid tahay ayaamihii aanu hore u ciidi jiray oo markii aanu gaalo ahayn ayay caado noo ahayd inaanu ayaamahan aanu ciidno oo aanu dabaaldegno, oo waa maalin ciida. ciidna waa maxay? waa wax soo noqnoqda. hadday noqoto ixtifaal biciid almiilaad, waxaa birthdayga, ama ciid sanad guurisa, ama waxyaabo kale soo noqnoqdaba. nabigu markaa wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam, ha samaynina, fa ina allaha abdalakuma, ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan buu idin siiyey. ciid alfitr wa ciid aladxa, labadaa ciidoodoo qurayna loo ogolya buu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam. mu odhanin dhaqan baa u leedihiin, hidda u leedihiin, waa iska okay, waxaa joogtaan wadan gaalo iyo muslim isku jiro. waxaa nebigu muu sharaxin. wuxuu labadaas unbaa laydin ogolya, ka jooga. way ka joogaan, waayo saxaabada waxa lagu yaqaanay inay dhahdaan samicna wa atacna, samicna wa atacna, waanu maqlaynaa waananu ku soconana baa lagu yaqaanay saxaabada nebiga sala allahu alayhi wasalam. ta kale meesha taallaa waxa weeye, haddaynu nahay dad Soomaaliyeed, dee dhaqan inoomaha inaynu sanadka bilowgiisa sanad guur aynu samayno oo aynu ixtifaal samayno oo loo dabaaldego. dee waxaynugama aqoonin. diintuna inaynu dad aan muslimiin ahayn ku dayato inooma ogola, waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuu inoo sheego oo si xun saluugan buu u sheegay dadka dabadhilifka ee dadka iska daba raaca. markaynu diin iyo dhaqaman ka eegno, sanad guurkan la guuraya ee loo dabaaldegaya, ee la tumanayo, ee durbaanada lasoo tumanayo, ee dumarka isqurqurxinayaan, ee xitaa kuwii diinta lahaa ee xijaabsanaa ay dhahdeen caawo waa caawo, waan ku dadaalaynaa, lama ogola. marka walaalayaal, waxaa idinkula talinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna asturo, laakiin inaga daaya bahasha, ilaahayna ka cabsada, diintiina ha loo soo noqdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.